halkaas ku fasaxayna horta isaga aad baa sanadka soo wadayska soo hadda ka laga bilaabo liis badan halka ku qoran oo loo yaala waxaan jecelahay intii aan u yeelaa ila aragtaan inta kalena xeerale ahaato waa isxilkii salaada soo dhow waa ogahay maanta ay socoto habeen gabalku noogu dhacay oo aanay dhammaaneen dadkuna ay jecel yihiin qof waliba shucuurtiisa iyo dareenkiisa inuu bulshada soo gudbiyo raalli bay ahaanaysaa xaflado badan oo kala heshiin doona meelo fagaareelo badan oo inta ka waaweyn oo ay dareenkiina iyo waxaad jeceshiina bulshada gaarsiisaan ay ku soo bandhigi doontaan bay insha Allah isu iman doonaa marka aad iyo aad baan idinka raali gelinayaa waxaan weliba mar kale sidaa la gelinayaa inanta la yidhaahdo hoodo aadan oo iyaduna gabadh dhalinyarada ku saabsan waday oo codsigeeduna soo gaadhay waxaan leenahay waqtigii baa naga gaabtay aad iyo aad baan raalli nooga ahanaysa inta haddaan ka gudbo waxaan ugu horreyn salaamayaa madaxda sharafta leh ee qiimaha badan ee maanta xisbiga wadani ku soo biirtay ama ka mid ka noqotay ugu horreeyo مستر قلومي سليمان قلومي ururkii rays isla markaana aan gudoomiye ku-xigeenadii rays gobolka awda laga soo jeeda waxaa sidoo kale saxaafadiyadii salaam laga soo jeedinayaa axmed cali shine siciid sulub iyo faatimo oo dhammaantoodba noqon doona lafdhabarta xisbiga wadani waxaan leenahay shacabka aloontu oo si fiican loo soo inta kale oo uu ka mid yahay suldaankii madaxdhaqameedka gobolka sool ee halkan ka hadlayay isla markaa dareenkiisa muujiyey isla kuna soo biiray xisbiga iyo madaxda kale ka fadhiyana waa salaamaya dhammaantoodba intaa haddan ka gudbo maanta waa laynala hadlay si weyn baa laynala hadlay madaxdii xisbiga ku soo biirtay iyo madaxdii kale xisbiguwa fariin culus bay noo sheegeen wacyiga iyo marxaladda uu dalku marayana waa na wada tilmaamay waxaa loo baahan yahay hadalka inaynu weelayno maaha inay hawhawigu dhaafto oo halkaa inta laga gashaaqaa ka baxdo waxaas waxaa loo baahan yahay inaynu ku camal falno isla markaana aynu ficil u bedelo ficil inaynu bedelo diyaar moodiin waynu ka warhaynaa maanta dalkeena marxaladda marayo raagi afkiisa calaluhu wuxuu sheegay in koox shufta ah koox aan la garanayn oo jumhad ah ay dalkii gacantoo gashay weliba waxaa lagu darayaa kooxdaasi hadday meel weyn loo wada jibi lahaayeen maxay aan lahayd iyaga dhexdooda 100 kooxood ay madaxa isla jiraan gudahooda isweydileen waxaynu ku siganaynaa in dalku ay burbur hor leh ay gacantoo geliyaan maanta dalkeennu badbaadi u baahay badbaadadaasi waxa weeyaan waxay ka imanaysaa ma aha cabdiraxmaan xaan cabdilaahi diblomaasiga sare ee xisbiga hogaaminaya fikirkiisoo keliya maaha ficilkiisoo keliya maaha aaraadeenna xuduudeenna maskaxdeenna iyo awoodeenna midayno reer somaliland oo dhan haddaynu nahay ayaynu qarankeena ku badbaadin karaynaa waa markaa islaam waxaynu qaranka ku badbaadin karaynaa innagoo isu geyna aqoonteenna adduunkeenna codkeenna iyo taladeenna waxaa loo baahan yahay maanta qofka miyiga jooga iyo ka magaalada jooga mid waliba waa ka damqanaya amartaa sare xukuumadda ay talada haysay halkuu dalku marayo iyo meeshuu gaadhay haddaad eegto sharciyadii waddanku waad isweydiinaysaa meelay taalla garanaysa meelaad ugu soo eegtay mataqaanin way ku guulisay way baabayseen waxba kama jiraan siciid suumiyadoo lagu xaman jiro oo lagu eedayn jiro loola jiray udu markay ahaayeen sharciga kuma dhammaan عن فوضى تلبطي واحد من شرعي وتقانبا يلا واحد أفكار كسر حوكليه شرعي ذلك اللابطي طبعا يسكلكتي واحد شرعي وتقانا واحد فكر كده يبقى سهل الكشاف واحد قال كده القرآن أي شرع وتقانا هذا شرعي المرسى المرادين دي أن يشاركني ولا بابي قبيلتي ولا سولوني وانا ركا ما تو حوالي كتاغن يا halka ay marayso hamaantii dowladnimo ayaa luntay amnigi ayaa faraha ka baxay oo xukuumadda madaxdeedu waliba ay iyagu iclaamiyeen in dalku xukuumadda laftirkeeda ku burinayso marka wasiirada ka mid leeyahay xisbi xaakimka dalkii burburinaya shaamil dhigaya ee kii kalena uu ku eedeeyo isaga dhigaya miyaan ummadda kale albaabada laga xidhay waa la dhamaantay
البلد واحد جيبوتي واحد دارك كلام هذا البلد حاول حصل إنه قد عين وأنتظرنا يوم من الحمامة أي حكومة كتر أصلي من شفتوا واحد لامعة أو إنوجا سأستفيد الحملاني وهو حال يجمع كنايا وأنت كلكم ينقل الموت كباسل يوم الجيشة لا يجمع كنا إنه مدينة عزب يعملين يأكلون عن الموت يأكلون عزتي وقتوا كابن درتين وحشعلها إن مرة ما هذا حفلة اللي سوق القامسي يمكن سوق الشيء وحشعلها سأروح شيء إلى كسر ويو حوالي الجود حسبنا